ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدا وديال كسو دوادا وركي عالمka wadahadahan oo kale ka daawatan telefishinka madaxa banaan leh Balsan TV xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa. warkana waxa idin la socodsiinaysaa anigoo Nuur Ismaaciil Maxamed. qodobadan habeenkan caawa warkeena ugu doorka roon la ayaa waxa kamid ah kulanay maanta wada yeesheen madaxweynaha Soomaaliland iyo asxaabta qaranka ayaa dib loogu dhigay diiwaangelinta codbixiyaasha dalka xaalad abaareed oo baxsan oo dalka ka jirta awgeed. gudida sahan barwaaqo ayaa deeq biyaha gaarsiisay deegaanada koonfurta magaalada Hargeysa. daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada habeenkan caawa warkeena ugu doorka roon leh. imikii haatan ku soo dhawaada qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan. kulanay maanta wada yeesheen madaxweynaha Soomaaliland iyo asxaabta qaranka ayaa dib loogu dhigay diiwaangelinta codbixiyaasha dalka xaalad abaareed oo baxsan oo dalka ka jirta awgeed. warka waxa inoo haya wariyaheena Qadar Beergi. kulanay maanta aqalka madaxtooyada Soomaaliland ku wada yeesheen madaxweynaha Soomaaliland shirgudoonka labada gol baarlamaan iyo gudida doorashooyinka Soomaaliland oo weheliyaan saddexda xisbi qaran ayaa la isku qaatay sidii dib loogu dhigi lahaa diiwaangelinta codbixiyaasha maadaama ay dalka ka jiraan abaar baxsan oo dad iyo dunyaba saameeyay. haddaba shirkaasi qodobadii la isla qaatay waxa kamid ahaa sidii la isku waafajin lahaa diiwaangelinta codbixiyaasha laga qabanayo Soomaaliland iyo gurmadka bini'aadanimo ee loo fidinayo xaaladda abaaraha ee ka taagan Soomaaliland iyo sidii gudida doorashooyinka Soomaaliland iyo asxaabta qaranku ay isaga xil saari lahaayeen taabagelinta codbixiyaasha. ugu dambeyntii waxaa shirka lagu soo gunaanaday in dalku uu marayo marxalad adag oo xasaasi ah sida daraadeedna in gees loogu soo wada jeesto maslaxadda ummadda iyo sida ay danaha qaranku ay ku jiraan. markii uu kulankaasi soo idlaaday waxaa si wada jira saxaafadda ula hadlay dhammaan dhinacyadii ka soo qaybgalayaasha shirkaasi waxaana hadaladoodii kamid ah sida waxay leeyihiin faraweynana ayaa laga codeynin oo diiwaangelin laga gelin balay gobolada laga galo salaxlayna ayaa laga gelin allay badayna laga galo. waxaan u aragnaa cadaalad darro, waxaan u aragnaa awoodii qaranka si qalad loo isticmaalayo. halkay ka socotay saddex gobol hore waa la soo maray, saddex gobol baa haray. xukuumaddu iyadoo markii horena ka cagajiidaysay diiwaangelinta waxay maanta soo dhigtay in saddexda gobol haray dib loo hakiyo. anagu ka wadan ahaan mowqifkayga waan gudbinay, arrinkaana waanu diidnay. waa shirtay golayaashii qaranku u igbaday inuu ay masilaan waa shire waxaana la go'aansaday in diiwaangelintiina la hakiyo. awooddeennoo dhan inaynu isugu geyno abaaraha iyo gurmadka dadkeenna iyo dalkeen. abaar bayna haysa qof kasta oo bilaadan oo arkaya waxa dhacaya inaynu maanta dhinaano diiwaangelin baynu gelana waa dhibaato weyn. waxa weeye waan isla eegnay si kasta waan isla eegnay bisha Ramadaan iyo bisha Abriil insha Allah ta'ala naqbino iman doono inaynu hakino awooddeena iskugu geyno sida in gurmad u gurman lahayn dadkeena. wuxuu in doorashada waqtigeeda lagu qabto kalabaadna saa laydin sheegay in la hakiyo diiwaangelinta. sababta loo hakinayaana ay tahay dawlad yar baynu nahay, dhaqaaleenu ma buura uma wataan heer dhaqaale labada hawlood wada wixii aynu dhaqaale iyo adduunka inay soo geeyno gurmadka. Qadar Maxamuud Cismaan, Balsan TV, Hargeysa. gudida sahan barwaaqo ayaa deeq biyaha gaarsiisay deegaanada koonfurta magaalada Hargeysa. warkaas oo faahfaahsan waxa inoo haya wariyaheena Maxamuud Cumar Maxamuud. deeq gurmad biyo dhaamis oo dhamay 10 booyadood oo biyo ah ayaa loo fidiyay dadweynaha abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan koonfurta magaalada Hargeysa. deeqdan waxa gacan weyn ka geystay jaaliyada reer Soomaaliland ee ku nool wadanka Sweden iyo ururka haweenka ee Gaarowdi oo deeqdaasi ku soo hagaajiyay gudida ururka sahan barwaaqo ee ka jirta magaalada Hargeysa. halkan aanu joogno maanta waxaanu ku deeqihii u dambeeyay ee abaaraha ee gudida guud ee sahan barwaaqo ay u dirayeen deegaanka oo ay soo bixiyeen jaaliyada reer Sweden. waxaan hore u danay 250 booyadood iyadoo maalin walba ay socdaan biyo dhaamisku. ilaahay waxaan ka rajaynayaa in ummadda uu ka soo jabiyo abaaraha. 10kii u dambeeyay baanu maanta diraynaa, ayaga kuwa horeba waa u ducaynaynaa. waxaan u leenahay ilaahay inta uu raxmaadka inoo soo shubayo ha joojinina kaalmada aad dadkiina gaarsiinaysaan. waa aragtaan maanta booyadaha halkaa taagan kuwii u dambeeyay maahay maalin walba sidaas u socdaan, maalin walba way socdaan. halkaad maanta ku shubto 10ka boodood imika halka lagu shubo aroorta haddana waa laga soo qaylinaya waayo dadka ka badan wax weel yar lagu qaaday waxba u goyn maayaan, dadka waxba u qaban maayaan. waxaanu idinka codsanaynaa
guday iyo debadba dadka reer Somaliland meel kastoo joogaan abaaraha ha u soo gurmadeen. maxamuud cumar maxamuud barsam TV. qaar ka mid ah madax dhaqameedka gobolka Togdheer ayaa qaadacay diiwaangelinta dib loo dhigay warkaana waxa inoo hayay wariyaheena Cabdishakuur Aadan Colombia. qaar ka mid ah madax dhaqameedka gobolka Togdheer oo maanta shir jiraayid ku qabtay magaalada Burco iyagoo ay ka soo horjeesteen go'aankii maanta lagu hakiyay diiwaangelinta dalka ka socotay waxa ay sheegeen inuu gobolkooduba abaar ku jiray xilligii diiwaangelinta laga bilaabay odayaashani waxa ay soo jeediyeen in diiwaangelintu sideedii u socoto waxaana hadaladoodii kamid ahaa gelintii waxay ka bilaabantay Burco annagu haddaanu burcanahay markii ay ka bilaabantay waqti abaartu naga xumayd ma jirin waxaana lagu yiri leedin joojin maayo hal maalin lagu ma dari karo bana lagu yiri dib looma dhigi karo waxaanu iminkana u sheegaynaa Somaliland in sidiina lagu bilaabay ay u socoto baashu diiwaangelintii baa imika socotaa annagu haddaanu reer burcanahay iyadoo abaara jirto oo biyo la'aan jirto oo dhib fara badan jirto oo dhaqaale darro jirto ayaanu waxaan codsanay in dadkii ay guureen oo ay u baahan yihiin inay dib u soo noqdaan oo robdo waana laga diiday doorashada maanta la leeyahay ka dhici mayso Maroodi Jeex oo caasimadii dalka waxaanu filaynaa oo aanu jecelahay oo aanu doonaynaa in dalka oo dhan diiwaangelintu ay ka dhacdo diiwaangelintii ku soo taabteen annaguna aanu ku taabnay waxa la doonayaa in dhexda laga tuuro oo dimuqraadiyaddii la burburiyo waxaanu iyagana u sheegaynaa inay indha gaar ku hayaan xukuumadda ku cadaadiyaan xaaladda abaareed ee dalka ka jirta ayaa keentay in la hakiyo diiwaangelintii dalka ka socotay Cabdishakuur Aadan Colombia telefishinka caalamiga ee Barsan TV magaalada Burco wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Somaliland ayaa xadhiga ka jiray xafiis cusub ay wasaaraddiisu ku yeelan doonto gobolka Sool warkaas oo faahfaahsan waxa inoo haya wariyaheena Asma Yuusuf Maxamed wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Somaliland Cali Maxamuud Axmed Cali Sandule oo uu weheliyay gudoomiyaha gobolka Sool Mustafa Shiine ayaa si rasmi ah xadhiga uga jaray xafiis ay wasaaraddaasi ku yeelan doonto gobolka Sool munaasabad loo qabtay xadhiga jarkan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta heer gobol heer degmo odayaal waxgarad iyo mas'uuliyiinta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ugu horeyntii waxaa ka hadlay isku duwaha wasaaradda gobolka Sool oo ka waramay waxtarka xafiiskani gabagabadii waxa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sool Mustafa Cabdi Shiine oo baaq u diray wasaaradaha kale inay ku daydaan wasaaradani maanta waxaan ka jiray taasi oo runtii wax u soo kordhay gobolka Sool oo aan nasiib u yeeshay in la kabsado waxaan uga mahadcelinayaa runtii wasaaradda arrimaha bulshada ee wasiirku hogaaminayo inay noqoto wasaaradda ugu horeysay intaan joogay marka xafiis furata waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa wasaaradda iyagana xafiisyada ka furtay xafiisyada markii aan isugu yeedhiso duuyaashii waxay caddaatay in wasaarado badan oo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka tirsan inaan xafiisyo ku lahayn gobolka Sool oo ka tirsan gobolada qadiimiga ah qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland taasi waxaan u dirayaa wasaaradda yeelan xafiis ku yeelan weyda iyo wasiirka wasaaraddiisa dhisan waayo gobolka dhisan waayo inuu yahay wasiir aan diyaar u ahayn in la daadajiyo wasiir aan diyaar u ahayn qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland soo gaadho oo la daadajiyo maamulka inuu yahay baan qaadanayna waan soo bandhigi doonaa runtii wasaaradaha diyaarku waa inay qarankan gaarsiiyaan maamulka gaarsiiyaan meel kasta oo ay maamulkiintii ka qayb qaataan waxaan u maleynayaa gobolada dee nasiib u yeeshay xafiisyada inay hadda loo dhiso xukuumaddu u istaagtiin runtii madaxweynuhu wuxuu ku dadaalay maadaama wasaaraddan ay tahay wasaaradda dadka nugul inuu gobolada dhammaantood ku talagalo inuu dhismayaal u sameeyo isuduwayaasha ku shaqeeya si ay xogta uga caawiyaan muxuu ahaa arrinta shaqada uga caawiyaan arrinta muxuu ahaa haweenka uga caawiyaan arrinta carruurta uga caawiyaan inuu xog badan oo kale oo ay wasaaraddu leedahay ay gudoomiyaha gobolka kaalmo uga siiyaan ayaa wasaaradda loo dhisay marka tii uun baan anaguna in adeegii aan diyaarino oo meeshii ay hawsha ku qaban lahaayeen mas-uuliyadoodii iyo baahidooda inaan soo wada eego aan tayeeno wixii ka dhiman waxaan u maleynayaa 4 gobol baa dhiman hadda waxa weeye gobolka Selen waa Buuhoodle Caynabo iyo beesha la yiraahdo Xaysimo waxaan magacaabay anigoo ah barasab gobolka Sool gudidii heer gobol ee ka howlgalaysa abaaraha runtii gobolka Sool ee maanta joogo waxaan ognahay in dhinaca abaarta uu ka ladnaa intii hore oo ay meelaha qaar baad ku sii harsanaa iyo biyo laakiin dhibaatada ugu weyn ee gobolkan haystaa ay tahay maanta in dad soo guuray oo ka soo hayaamay dhinaca gobolka Sanaag iyo dhinaca dalkeenu jaarkan ay Soomaaliya qaasatan Puntland
ay soo gaadheen dadkaasi oo culays badan ku hay dadkii deegaanka ah. Asmiisu Maxamed Barsan TV Hargeysa. waa tahay daawadayaal intaa waxaa inoogu eeg war waxaan dalka gudihiisa iyo dabadiisaba idinku haynay warka waxaan la socodsiinaysay anigoo Nuura Ismaaciil Maxamed aniga iyo barbaartii Balsan TV ba waxaan kaga tageynaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi tacaala wa barakaatuh.